أحمد محمد نور وزير ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta wasaaraddaasi ku leedahay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay isla markaasina si adag uga soo horjeestay ciidamo uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ka qaadayso gobolada Sool iyo Sanaag Bari kuwaas oo la geynayo magaalada Muqdisho waxaanu wasiirku sheegay in aanay dawladda Soomaaliland arrimahaas u dul qaadan doonin isagoo fariin u diray dawladda Soomaaliya uguna baaqay inay faragelinta ay ku hayso waxaan jecelahay inaan ka hadalno xaaladda ku soo kordhaya oo aanu aragno gobolka Sanaag iyo Soolba labadaba kuwaas oo ah in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka wadaan gobolka wadogtiina Soomaaliland waa dawlad caalamka oo dhan og yihiin كسو أقوس ويرانو لكن العالم كله صعد حق أمنك إياه نبتقليدا وحين نبتقليدا كهر إيمانها إياه أما نبتديت كأه إن لا دقالمو أما لا جهر تقول دي أنه مديدنين وأنا كقيب قادنا شعب كرير سومالي لانجارهان قبل سناك بري وتدو قدر دبعتها كدعدي دولة دون واتان تعسي وقدر ريالكا أنا وقت تعسيدين أنا ضدك هالكا كجريودو أنا بدن كودا جرنا إنه يعيد ما دي بود لام بدين عول لكن يدو أنو سيدا أنو تعسي قرين بودلان واحد مودائن هدا وكسو وجهان يهي مدحوينه فدرالكا وكسو صعود قروي تاسينا waxay tusaaleysaa sida wararka xoogaalkii naga soo gaarayaan Sanaag Bari iyo gaar ahaan Sool iyo Buuhood laba inay doonayaan inay faragelin badan ay ku sameeyaan iyagoo dadka ku wajahaya ama ka dhaadhicinaya in ciidamo loo qaado federaal ah gobolada laga qaado oo shirki ka dhacay gobolada laga qaado oo la geeyo meesha la yiraahdo in xamar taasina waxaad moodaa faragelin toos ah inay tahay indhahana kama qarsanayso Soomaaliland runtaanu sheegayna hadii ay arrimahaasi ay Soomaaliya ka waantoobi weydo oo gobolada Soomaaliland min ceelaayo ilaa iyo loo yacdo wixii faragelin ku sameeya dhulka Soomaaliland ay faraha kala baxdo geesta kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsigu waxa uu ka hadlay qodobadii heshiiskii ka soo baxay wada hadalladii Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo ee dhawaan Hargeysa ugu soo gabagaboobay dawladu geedeenoo wada hadalladii si fiican ay u socdeen علي خليفة الدولة ووضع هذا ليين لكن لما هو واحد عرقلة ذي ميل والبا عرقلة دو إسكتشرتها لكن دولة الصومال لأن مر والبا الشعب كذا يدو الدناينيسا بوهود يصول أنت عد الله عد يسناق با مر والبا وضع هذا الله والله فرتها ده تكون وادت غير صومال لأن ما هذا غير صومالية الدولة فدرال كحيران وإسكتشران ضد حاجة حمر سجى شقتي جيو تشوجا لكن مر والبا صومال لأن طلبوا كأي قاد وادو قد شركة هرجسة كدعي وادو شراركي بدنا عينه بكدعي وده هذا الكسد وسعنا وهذا سعتين هشيس توصل للجاري على خليفنا وعدي لكن خلاف لما وايقهم لما قف ما صدق قف مالها كتراب تواجران عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفزيون عالمي الصومالي كيبل مقالة هرجيسة